aad buu mahadsantahay wax kale la isweydiinaya hadda markii la yiraahdo ha laga doodo ama ha la qaadaa dhigo waxa keenaya dadkan tahriibayaashu inay tahriibaan isla markaana naftoodii ay ku biimayaan ama ay geliyaan meel ilaahayba ka deeriyo la yiri war haystinina marka waa barnaamij aad u ballaaran oo inaan hataa ku soo koobi karinin haddii aynu macnaha jaleecno ama aynu qooraansano xaggaasi dadkan bahda saxaafadda ah saxaafadda laftigeedu in dadkaas la ababiyo oo laga wacdiyo oo barnaamijyo loo qabto door intee la eg bay yarayn kartaa aad leedahay tahriibkan sii badanay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u maleynayaa saxaafad marka laga hadlaayo waxa maanta liidar gareeyay inay yihiin dhalinyaro kaalinta koowaad ku haya oo aysan maanta iyo odayaashii hore saxaafadda ku jiri jirayna san saxaafadda ka dhex muuqan inta badan marka laga reebo qaar yar oo fara ku tirisa kuwii hadda jiro dhalinyarada ahaa oo saxaafadda ahaa oo dalka ku sugnaa ama dibadda ku sugnaana iyagiya waxa u malaysaa haddana masiibadii dhalinyarada ku dhacday tahriibayaasha inay qaybtooda ka qaateen oo iyaga laftigooda ay qaxeen la taarget gareystoo la dilay la dhacay loo hanjabay wax walba lagu sameeyey saxaafaddu waa shayga keliya waxna dhisi kara waxna dumin kara ninka dhalinyarada oo saxaafadda jooga markuu ummadda kala taliyo masiibooyinka iyo dhibaatada ka jirta bannaanka waxaa laga yaabaa ninka dhegaystaha inuu ku qanco laakiin ninka saxaafiga ah markii uu advertising ku sameeyo waxaa la yiraahdo excel oo dadka qaxay oo bannaanka jira qofkii gudaha joogo dalka joogana waxaa laga yaabaa inuu maseero dadkii bannaanka jiray marka waxaa annaga targetkeena rasmiga ah oo rabo saxaafadda inaan kula taliyo sida haddan uga qayb qaatay kulan ka dhacay dalka Kenya oo saxaafaddu ay ku midowday oo dhalinyaro fara badan oo wariyaal aan kula kulmay oo kii ugu weynaa ebed aan arkay in dib ay u noqdaan ay ka go'an tahay dalkii iyo dadkii inay wax u qabtaan in baraarujinta horumarka nabadda inay saxaafadda ka shaqeyso that is the right way waxa way oo qofku success goal ku gaari karo lagu hanan karo in la badbaadiyo dhalinyarada iyo mustaqbalka dalka Soomaaliyeed saxaafaddu hadday shacabka iyo dhalinyarada la jirto dalku iyo dadku waa badbaadayaan saxaafaddu hadday la jirto burcada iyo qolada wax dudumisa sidii hore u dhici jirtay oo kale dalkii iyo dadkii 20 sano la soo dhaafay wuxuu ku darsanaa in la eg haddaad maqasheen hogaamiye kooxeed iyo siyaasi iyo dawlad waxaa dhisa saxaafad waxa lagu dilana waa saxaafad waxa la qixiyo oo la target gareysanayna waa saxaafad waxaas wixii soo saarayna waa saxaafad marka saxaafadii iyadii hadii nagu waxaan maqli jiray ninkii barbaarshay bahal nool ka baxsay ama boqno gooy saxaafadda hadii hogaamiye kooxeedyo cusub iyo nimanan ahal u ahayn siyaasadda aqoonna u lahayn hubsita ay nagu barbaariyeen aniga waxaan aaminsanahay dhalinyarada dhibka soo gaaray inay ayada lead u tahay hogaamiso apologize-keedana saacadan aanan qaadan karin waxaan saxaafadda ka rabnaa waxay sameysay wax ka duwan inay inta la timaado dadkii iyo dalkii ay ku barbaariso horumar dhaqan wanaagsan iyo wacyigelin wanaagsan waan gartay dhalinyartii way dhimanaysaa cibaaro rafaadkii wuu socdaa ma joogsanayso iyada laftahaanteedu umuurtii ku salaysay dadkii inay tahriibayaasha ay sii tahriibaan oo hariya maalin iyo markasta way socotaa su-aashaan marka kusoo gabagabaynna barnaamijkeena wuxuu noqonayaa adigoo intaa kusoo dhex jirood macnaha khabiir ku ah umuurtaas wadatashina qaramada midoobe ka siiyey adiga laftiyaada dad ehel tihiinna bay ka mid ahaayeen dadkii ku harqaday ama ku dhibaatoobay sideebaad is leedahay allaylah oo kula habboon waa lagu joojin karaa ama ugu yaraan waxba lagaga dhimi karaa umurtan baahsan bismillaahi raxmaani raxiim qofka uu ilaahay ugu talagalay inuu wax siiyo xisaab la'aan loo siina qofku hadduu dalkii joogo iyo hadduu ka tago wixii ilaahay ugu talagalay uu helaa taas waxaan leeyahay kow qof walba ha ku qanco inaad ka soo jeedo Soomaali tahay wadani u dhashay dalka Soomaaliya haddaad joogto Latin America haddaad joogto England haddaad Africa joogto haddaad Asia joogto waa inaad ummadaha aad la joogto siday dalalkooda ugu qanacsan yihiin aad dalkaaga ugu qanacda oo aadan ugu qancin dal islaameed waxaana la nacsiiyay dalkeeni waxaana la jeclaysiiyay dal islaameed midaasan ka leeyahay midda labaad qofku hadduu iimaan leeyahay ku qanco dalkiisa dadkiisa waxa u suurtagelaysa inuu ka shaqeeyo waxa yariiska u haysto inuu macaaneysto
qofka laakiin hadduusan iimaanba ku qabin waxa uu haysto almost waxa waaye waxaan noqonaynaa dadka la yidhahdo no man's land, dhul dadka aan dhulka lahayn. waana sida inta badan Soomaalida dabeecadiyan u noqotay adduunka looga yaqaan dadkii iimaan laawayaasha, madhargayaasha, socod majoojiyaasha, maxaan ku yiraahdaa dhul malahayaasha, dhulkeenii nagu haystaan, hantideenii rabaan. kan America joogana Soomaaliga markuu arko saas uu leeyahay, kan Afrika joogana saas uu leeyahay. waxa arkaysaa marka labaad qof Soomaaliyeed waxa leedahay jaamacadan ku siinaa Soomaaliyeed ku baranay guri weyn oo daarana waa ku siinaa hanti in la intaad rabtana waa helay joog ama waxaad qaadataa America. qofku wuxuu jeclaanaa America ama wuxuu ku leeyahay Europe haleegay. war Europe raga iskale kugu faca dhistay hormarsadayna u istaag dalkaad leedahay oo macaan ee yar ee qaniga ee dhulkiisa maanta hadii la qaybiyo 8 milyan ee lagu soo sheegay statistics inay Soomaalida tahay oo hadda in badan ay ka dhimatay. dhulka Soomaaliya yaala iyo dadka marka la isku fiiriyo bad ahaan dhulka weyn waa dhul naga soo kala haraya, deeq fara badan leh, horumar fara badan leh, maxaan ku raahdaa wanaag fara badan leh. haddaan tusaale u soo qaato gobolada Soomaaliya ka go'aanaya ee la yiraahdo ee Puntland iyo Somaliland oo kale, beeraha koonfurta ay leeyihiin malahan, horumarka dhaqaale iyo biyaha ay koonfurta leeyihiin iyagu malahan, nabadna waa haystaan, dawladna waa haystaan, waana ku raaxaysanayaan. annagii intaas haysanay inaan ku sabarno oo iimaanka Ilaahayna geliyo oo inuu qof walba ku faatixaystaa meeshuu joogo, kuna tawakkala dalkiisii, dibna ugu soo noqda dalkiisii. waxa uu maanta wax ka abuurayo oo horumarinayo inaysan ahayn dalkiisii, biritan la dhihi karo waxaan adigu maleeyay ka tag. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waagaag daawadayaal intaas waxaa ku dhan barnaamijkeenii xog wararin oo aynu maanta ku qaadaa dhigaynay umuuraha ku aadan maxaa sababa tahriibayaasha, tahriibka xaguu ka yimid, maxay tahay faa'iidada ka helaan, iyo weliba sidee looga hortagi karaa masiibooyinka uu dhaliyay tahriibka ee boqolaal hooyooyin ay caruurtoodii ku waayeen, caruur fara badan oo markaa sabi ahaana ay badaha ku harqadeen ama ay ku geeriyoodeen. wax badan waxaa inaga kaalmeeyey oo marti ugu ahaa barnaamijka Cibaar Sheekh Cali Cibaar oo ah qabiir ku takhasusay umuuraha tahriibayaasha isla markaana ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan siyaasiyiinta lagu tilmaamo kuwa mustaqbalka dhalinyarada ka soo jeeda. intaas waxaa ku dhan barnaamijkeena, waxaana barnaamijka idii daadiinayay anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre British. tani intaynu ku kulmi doono barnaamij la mid ah barnaamijkan, aniga Cibaarba waxaan dhammaanteen inaga tegaynaa wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.